قسما بمن خلق الشداد طباقا. ducadan aan kuu sheegayo haddaad 40 jeer ku ducaysatid oo ducada dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala aad weydiisatid muraad ama xaajo gooniyo oo leedahay ilaahay wuu ku siinayaa sidoo kale ilaahay haddaad ka dalabtid inuu kurbo ama culays ku haysto uu kaa fiidana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaaga fiidayaa allahu akbar ducadu maxay tahay haddaba ducadu waa xasbuna allah sayu'tiina allahu min fadlih inna ila allahi raagibuun oo micnaheedu uu yahay xasbuna allah ilaahay ayaa igu filan sayu'tiina allahu min fadlih ilaahay wuu isiin doonaa oo fadligiisa ayuu igu siin doonaa inna ila allahi raagibuun aniguna waxaan ahay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowraya oo wax wanaagsan oo khayra ilaahay ka rajaynaya haddaba ducadan 40 jeer ruuxii ku ducaysta salaada subax kadib ama salaatuleylka markuu tukanaya ragcada dambe intuu ku jira 40 jeer ilaahay sidaas kaga barya oo xaaje ilaahay weydiista rabbi tabaaraka wa tacaala xaajadaas iyo muraadkaas qofkaas uu leeyahay waa u siinayaa haddii kurba ama culays uu haystayna oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga dalbo inuu culayskaas iyo kurbadaas kaga qaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga qaadayaa haddaba walaalayaal kelmadahan yaroo kooban oo fadaa'ishaas fara badan xambaarsan oo dad badan oo tijaabiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurahooda ku weydiistay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ka soo falceliyeen ka faa'iideysa laga bilaabo maanta oo ilaahay waxa aad doonaysid ee ku gaarka ah ku weydiiso oo muuqaalkan gaarsii walaalahaaga kale si ay iyaguna uga faa'iideystaan oo rabbi tabaaraka wa tacaala ay xaajaadkooda ugu warsadaan iyagoo ducadan ku ducaysanaya قسما بمن خلق الشداد طباقا.